qulahayn naag u baahan ama gabar u baahan in oo dhiig lagu shubo in ay u dhimato anemia ayadoo baak isha dhakhaatiir intaan aan haysan waa ceeb waana wax aan aqbali karin dadka bini'aadamka in isku tashtaan wax ka fiican ma laha marka aan isku tashano dhakhaatiirta oo aniga aan ugu horeeyo waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano inaan ka shaqeyno isbitaalkaas waxaan idin balqaadanaa inaan xataa aan sameynayno qaliino lacag la'aan oo indhaha qaliino lacag la'aan oo qaliinada guud ah dhakhaatiir naagaha inaan wadayno oo ku takhasusay oo meesha inay ka soo shaqeeyaan diyaar u yihiin kaagadan hal shay jaamacadadan fiiriya dhakhaatiirta ee juniorka ee wax bartay ee guryaha iska jooga ee shaqo la'aanta ah dadkaas waxay u baahan yihiin in laga faa'iideysto human resource nuguma yara laakiin waxaa naga maqan in wixii anaga aan ka faa'iideysano dadkiisa ugu faa'iideysanaa mis laakiin dhakhaatiirta magaalada ugu badan yaa waay reer buur waay meesha ka soo jeedaan kaliya waxay u baahan yihiin in la nidaamiyo timetable loo sameeyo qaarkood intay guriga joogi lahaayeen ay guriga iska fadhi lahaayeen ay shaqo la'aan ku hayso waxay ka jecel yihiin waxay fursad u noqon lahayd inay ceelbuur tagaan ay kusoo tababartaan waa fursad fiican oo qofku experience kusoo heli lahaa shaqo fiican kusoo qaban lahaa under supervision uu yahay dhakhtar kale oo GB ah oo chronic ah oo waxa shaqada yaqaan oo ka shaqeyn lahaa oo wax badan ka soo baran lahaa laano aniga hadda inaan joohar ka shaqeeyo oo qaybta naagaha aan ka shaqeeyo sababta ay ugu weyn ay dhacdo waxa waaye waxaa marka internshipka sameynay internshipka sameynay aan waxaa u aaday gobol leeyahay Kurdistan oo ku taal Nuud meel leeyahay oo tuulo ku taala yani qof yaqaan oo dadkan madmadow ay degan yihiin oo inta ka waxaysan meesha inta tagnay aan tababar ku soo qaatay oo experience ku soo helay aan 60 sales section soo sameeyay marka inta imtixaanka laga qaaday ama imtixaanka laga qaaday qof ugu horeeyo ku soo baxa aha oo ay qaateen imtixaan oo practical ah iyo imtixaan theory laba baa galnay marka qofka marka inuu baxo oo ceelbuur ka shaqeeyo horumarkiisa baa gashay qayb qaadanay inuu baxo oo soo shaqeeyo oo experience oo helo hadhow oo takhasus oo qaato fiildiga marka uu ku shaqeynay ama ha noqoto qaybta carruurta ama ha noqoto qaybta baa gashay naagaha ama ha noqoto qaybta internal medicine ama ha noqoto qaybta surgery qayb alla qaybta ka shaqeynay experience baa ku helaa exposure way bukaanaas ma imaanayaan inta hadii dadka dhakhaatiir ay joogaan xagga ay joogaan laano dhakhtar bukaanka meesha jooga inuu ceelbuur ka soo tago ayadoo waqtigaas dhan ay jirto oo intuu ku imaanayo warfaaska soo marayo waxa kale oo ka weyn waxa waaye koosiga oo baabuurka ku soo raacay meeqa mataqana qofka ceelbuurka imaanayo xamar imaanayo waa inuu $100 ugu weeraan ku soo talgalo oo go'an baag lacag badan waaye iyo inuu inta imaado oo inta lagu haayo oo inta waqti badan lacag badan juud laakiin hadduu xagga joogo waxa laga yaabaa qas badan inuu soo gali lahayn waan ka fursad fiican tahay marka qalab waa hayna isbitaalka lagu shaqeyn lahaa isbitaalka ugu fiican oo ugu weyn wuxuu ku yaala ceelbuur ku yaala gobolada dhex marka laga yaabo referral the best referral hospital and the largest way waa kan ugu weyn iyo kan ugu quality badan hadii lagu diyaalo waxaan naga maqan inaan waxaan anaga aan leenahay ownership wax leedahay waxaan anaga ma leenahay horta in anaga leenahayna waa inaan meeshayni guriga adiga aan leedahay waa dayactiranay isbitaalkana waa wax anaga aan leenahay waa wax ummadda ka wadaxay waa public way public markuu yahay qof walba waxa rabaa inuu ka fikiro sidii loo dayactir lahaa sidii loo waxay lahaa dadka jooga hadda jooga Yurub jira Mareykanka diaspora oo reer ceelbuur ah hadii la yiraahdo qalab soo dhameey oray ku soo dhameynaa qalab hebel naga maqan si hadii la yiraahdo baa gashay waxa naga maqan caawinaad oo running cost-igi iyo waxaas sanad way ku siinayaan wixii waa la habeyn karaa laana qof walba wuxuu jecel yahay meeshii magaaladiisa inuu horumar hadii wax lagu bixinayo wax ugu fiican la bixinayo waxa waaye waa khayrka waay khayrkaas marka aan ka faa'iideysano isku abaabulno dadkan sidii looga faa'iideysan lahaa oo aan haysan waa free human resource free baaqi shaqo oo aan kaaga baahnayn oo volunteer meesha hadii loo afalgareeyo kaliya meesha ku noolaan lahayn iyo accommodation kooda waxay cun lahayn hadii la siiyo diyaar waxay yihiin inay baxaan inta guriga joogi lahayn iska jiifan lahayn shaqo la'aan ku hayn lahayd waxa ugu fiican inuu ceelbuur tago oo experience soo helo shaqo soo qabto wax soo barto ugu fiican marka aan ka faa'iideysano abaabulka aan yeelano aan baag hore u socono hadda waxa maqlay dac nafkeeda in baag isha isbitaalkii la dayactiray oo meel fiican maray hadii dac la dayactiro oo ceelbuur la dayactiro bargaan la dayactiro galaayo la dayactiro ma bukaana u baahan in gurcel u aado ma baahan in gurcel aado ama dhismarba ama xamar u soo aado ma baahan bukaanada waa meesha lagu adeeg karaa anaga dhakhaatiir naguma yara anaga naguma yara baag isha inaan shaqaal naguma yara anaga lacag naguma yara wax lacag naguma yara lacag waa hayna dhakhaatiir waa hayna
shaqaale waa hayna dad diyaar u ah inay shaqeeyaan diyaar u yihiin laakiin maxaa naga maqan isxilqaantii iyo daladii iyo abaabulkii adoonan u fiirnayn personal interest